munaasabadani oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu maamuusayay maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 22 November ayaa lagu qabtay xarunta Akademiyadda Himad ee magaalada Muqdisho. madasha munaasabadda oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah ardayda Akademiyadda Himad ayaa waxa ka soo qayb galay barayaasha wax ka dhiga Akademiyadda Himad maamulka iyo marti sharaf kale. ugu horreyn madasha munaasabadda waxa ka hadal jeediyo mikrafoon ka qaatay madaxa imtixaanaadka ee Akademiyadda Himad Ustaad Ismaaciil Bashiir Maxamed oo ka hadla muhiimadda maalintan ay u leedahay barayaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ma santihiin. Marka waxaan mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu suurageliyay inaan xafladan halkan ku qabsano. Marka xigta waxaan mahad celinayaa macallimiinta ardayda ka soo qayb gashay xafladda 22 November maalinta macalinka Soomaaliyeed. Macalinka Soomaaliyeed waa markasta waa hagaha iyo tusaha bulshada. markasta waxa uu ku haweeyahay inuu soo saaro bulsho aqoon leh, arday wax bartay iyo horumar wacan. waxaan idin rajaynayaa horumar wacan. xafladdu way noo furan tahay. guulaysta ayaan idin leeyahay. dhankooda waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah barayaasha wax ka dhiga Akademiyadda Himad oo sheegay in 22 November macallimiinta Soomaaliyeed ay uga duwan tahay maalmaha kale. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya mahadleh ku mahadsan xalfadan quruxda badan maanta ina agaasimno isla markaasna waxaan mahad celinaynaa ardayda noo soo agaasimay xalfadan waxay daaran tahay mahad celinta macallimiinta Soomaaliyeed oo ah maalin ku xusan 22 November waa maalin loo asteeyay in la xuso macalinka Soomaaliyeed waxa uu dadaal dheer ku baxshay sidii uu jahli kaga saari lahayd bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. macalinka Soomaaliyeed waxaan leenahay jiro joog oo maasanta macallin. أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن هالكن كسلام يا دمان مرتشرفتا معلمينتا يا أرضيدا كسوق بقى حفلة دانات كقروح البدن سوق لو حرب إن هالكن نقوم هاد عليو دمان أرضيدي سوق من قابسة حفلة دانات كقروح البدن حرب هالكن إنه نقوم هاد عليو إن دمان معلمينتي يعني يسوق برتي كان دمبيسي إن هير كان سوق جارو سوق لو حرب إن أنت نقوم هاد عليو دمان معلمينت الصوماليات وضع عربتك الجهلة أو أنا كمداي محلية هالكاس كسي وضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan macallimiinta sharafta leh iyo ardayda soo diyaar garoobeen xafladan sharafta leh inay diyaariyaan maalinta macallimiinta sharafta leh inay soo diyaariyeen. sidoo kale waxaa mahad iska leh ardayda soo qaban qaabiyay xafladan sharafta leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah ardayda Akademiyadda Himad ka wax barta oo soo jeediyay murti ay ku cabirayaan dareenkooda. mugdigiyo iftiinka munkarkiyo macruufka ma ay wada ekeeyeen maasha Allah iyo munasalka quraanka iyo midaas marakacay muwaadiniinta oo idin midkay ka marakaceen ka aflaxay mudnaan macallin baale maraakiibta quustamiga duulimaad sare marshadooda ku yahay military majeesteen meelaha maatada maqsuud aan ogoleen muwaadiniinta oo idin midkay ka aflaxay mudnaan macallin baale macallinku waa maamul dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuude maamul dalkeena kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuude macalinkeena lokaal macalinkiisa lokaal mugdigii jaliga ahaa isaga masaxaye macalinkeena lokaal macalinkiisa lokaal. Peace of Allah be upon you. My name is Abdurrahman Ismail Abdul Qadir. I am one of the students of Himad Academy. I am here to congratulate 21st November Teachers Day. I congratulate all of Somali teachers, special teachers of Himad Academy. ugu dambeyntii maamulka Akademiyadda Himad Ustaad Cabdixakiin Cabdulle Faarax ayaa soo xiray munaasabadda lagu maamuusayay maalinka macalinka Soomaaliyeed oo ku aasaysan 22 November sanad waliba maalintan oo kalena si weyn looga xuso gudaha dalka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. dhammaan ardayda aad ku qiimaha badan ee maanta gartay inay maanta maamuusaan macallimiintooda aad ku qiimaha badan ee wax soo baray. waxaan ugu mahad celinayaa dadaalkii iyo juhdiga ay galeen isla markaasna
ay si ay macallimiintooda u maamuusaan isla markaasna ay ku maamuusaan maalintooda qofba maalin uu leeyahay qofba maalina magaalada loo shidaa maadaama ay tahay maanta 21 November 2024 konton sano kadib in aan maamuusaan ayna qadariyaan anagoo ah bahda himad ardayda aad aan ugu mahadcelinayna waxaan leenahay horu dhaqaaqa insha Allah waxaan rajeynayaa dadaalkii halkaan ku soo gaarteen inaad ka sii badin doontiin haddaan ka hadalnana macallin meesha ma lagu soo koobi karo macallin hawshiisa aad ay u badan tahay macallin waxaan dhihi karnaa maskaxda murti macnaha aan dhageysanayno waxa ku jirto mugdiga iyo jahliga isaga masaxaye allo macallinkeena kaal marka waxaan leenahay ilaahay macallimiinteena noo wada kaalo maskax hagaagsan cilmi laga helo macallinka leh macnaha wuxuu ku dareensiinaa macallinka inuu yahay maskaxdii quudo lahayd jirka isla markaasna dadaalkii juhdiga wuxuu u galaa mar walba in maskax hagaagsan oo caafimaad qabta ay soo baxdo isla markaas wadanka wax u tari karta qof walba arkaysiin oo dhaqaaqay qof walba hore u socday macallin la'aantiis uusan dhaqaaqin ugu yaraan inuu macallin wax ka soo bartay ama dugsi ahaan uga soo barto ama iskuul ahaan uga soo barto marka waxaan leenahay macallimiinteena meel walba ku joogaan dunida qaarkeen dhintay ilaahay u naxariisto qaarkeen noolna ilaahay cimri dheer ay wax lagu sii baraan ilaahay siiyo waxaan leenahay allo macallinkeena kaal ilaahay macallinkeena noo kaalo munaasabadaana aad waxaan ugu faraxsanahay in ardayda himad qaybteeda ingiliishka inay aad u soo qaban qaabiyeen barnaamijkan quruxdiisana aan ayagu u mahadcelinayno waxaan leenahay guuleysta horu dhaqaaqa hadduu rabbi insha Allah xafladeena maanta waxa waaye jadwalkeedu iska goobnaa xaflad iska gaaban ay ahayd oo macallimiinta ay ugu mahadcelinayaan ardayda macallin haddii loo mahadcelinayo waxaan leenahay adinkana waa mahadsantihiin maadaama anaga aan u mahadceliseen adinkana waxaan leenahay arday aad u mahadsantihiin qiimiintiina leedihiin isku mid ma tihiin qof macallinkiisa xusi waaye oo qadari waaye iyo qof macallinkiisa xusay karaamadiisa ag leeyihiin waa karaamo kala fog markii la dhahayana cilmiga marka laga hadlaayo qofka cilmiga leh qofka aan cilmiga lahayn ma siman horaa loo soo sheegay marka kastayriista ah oo macallimiintiina ku tabadeen oo macallimiintiina ku xasuusateen waxaan leenahay waan ku baraarujinaynaa mar walba xusuusnaada macallimiintiina ha ahaadaan mid marjac loo laabto idiin noqdo oo waxaan leenahay qaybihii kale xafladeena u gudubno halkaasina xafladeena ugu xiran tahay aad u mahadsantihiin سمير عبد الرزاق عمر ورركا مغلبهية SBTV مقالة عاصمة مقديشو.